الرحيم horta in badan waxaynu aragnaa iyadoo ummaduhu ka hadlayaan hogaamiye de waanaad aragtaayo marka aad ama dalkeenaba ka soo qaato ama dalalka kaleba ka soo qaato wakti badan iyo dhaqaalo badan iyo energy badan ayaa ku baxaa doorashada hogaamiyaha oo adiga arkayo dee doorashadii boqolaal malaayiin dad lacag wakti ayaa ku baxa marka waxaad isweydiinaysaa maxaa hal qof oo keliya oo la dooranayo ay waxaasoo dhan oo dhaqaalo ah iyo waktiya iyo maaragtay hadala iyo socodi ugu baxaa taasi waxay kutusaysaa in qofkan hogaamiye la dooranaya uu yahay qof muhiima oo ay nolosha dadka inta kaloo dhami ku xidhantay isaga ama iyada kolba qofku doonaa noqdee marka hogaamiyuhu waxa uu dhigmaa nolosha iyo mustaqbalka mujtamaca intiisa kaloo dhan ummadaha hore u maray ee dhaqaalahoodu kor u kacay ee bulsho ahaan meel wanaagsan gaadhay ee horumarka sameeyey intooda badani ama intooda badan yaanan ku odhina kulligoodda waxa ay horumarkaa ku gaadheen hogaamiye wanaagsan ayay heleen oo wanaag badan iyo horumar gaadhsiiyey ummadaha dib u dhacay ee keyrkood ka hadhay iyaga oo meel wanaagsan markii hore laga yaabay inay taagnaayeen markii dambe ay hoos u dhaceen ee dadkoodii burburay ee meel xun gaadhayna hogaamiyaha ayaa nasiib darra kaga dhacday oo hogaamiye qaldan bay heleen dabcan wax kastaba dee ilaahay baa qoray oo taasi waa gooni laakiinse ummad kastaaba waxay ku aflaxdaa sida ay ama hogaamiye wanaagsan u hesho ama hogaamiye xun u hesho ayay iyadana laftigeeda ku khasaartaa haddaad tusaalayaal ka soo qaadato dee dowladda masar oo kale caalamka in badan bay hogaaminaysay kumanaan sano ka hor adoo meel fogba teginna 70 sano ka hor dowladda masar oo kale ama aan idhaahdo 80 sano ka hor waxay ahayd dowladaha ugu horumarsan dowladaha soo koraya dhaqaalaheedu meel weyn buu joogay waxay la dagaalantay ingiriiska waxay iska celisay cadow badan oo kale markaa meel wanaagsan buu marayay maanta masar dadkeedu uu liitaa dhaqaalaheedu uu liitaa boqolkiiba 50 in ka badan nolosha dadkeedu waxay ka hooseeyaan xariiqda faqarka loo dhigay wax iskama celin karaan askarteedu dee shaxaad iyo dawarsi bay qaar badan ku nool yihiin yacni noloshoodu waa baaba waxba ma dhaanto dowladahan kale ee khasaaray ee dambe markii horeba liitay masartii halkaa taagneed 60-70 sano ka hor waxa maanta halkaa dhigay ma aha inay dadka ka tacliin yar yihiin tacliintoodu way fiicneyd aqoontoodu way fiicneyd hogaankii ummaddaa ka xumaaday malaysia oo kale oo aada u liidatay oo aan dhaqaalaheedu meel fog jirin hoggaan wanaagsan bay heleen dhaqaale wanaagsan bay samaysteen horumar bay samaysteen ruwanda oo kale markii 25 sano ka hor meelaha 26 sanood ka hor waxaa loo yaqaanay wuxuushtii africa waxaan dad isqalanaya waxaan dad isdilaya waxaan ahayn dad malaayiin qof iska dilay mar keliya maantana waxa weeyaan meelaha tusaalaha loo soo qaata africa dadkii ismay bedelin dadku waa sidoodii sidaa inay hunbay ahaayeen midabkoodii waa sidoodii dhaqaalahoodii dee horuu maray maxaa isbedelay marka hogaamiye wanaagsan bay heleen hogaamiye wanaagsan oo intuu ka koray caqligiisu kor uga kacay halkan kamuu fakirin dadkaagii waa la laayay wax iska celi kamanuu fakirin qabiilkii sida ahaayee dadka laayay maanta ha laga arguto kamanuu fakirin dhibaato kale ha timaado waxa uu fakiray si wanaagsan oo hore u maray haddaba bal horta aan isweydiino hogaamiyaha wanaagsan inuu sheegnaa muxuu yahay waa ka sida u eeg hogaamiyaha wanaagsan horta waa qofka aragtida leh vision waa inuu leeyahay siyaasaddu had iyo goor waxay leedahay waxyaalo maalinle ah oo maalin kasta dhaca oo lagu buuqo oo lagu murmo oo la isku caayo oo la isku dhaleeceeyo hogaamiyaha wanaagsani waa ka aan ku mashquulin waxyaalaha maalinlaha ah wadooyin maxaa loo dhisi waaye maxaa dhakhtarre loo dhisi waaye maxaa sidan loo qaban waaye haddaad maqasho waxa weeye hogaamiye wanaagsan maaha waa qof shaqaale ah unbaa waxaa ka hadla hogaamiyaha wanaagsani waa qofka aragtidiisu gaadhay 20 sannadood dabadeed ummaddan halkay rabtaa inay gaadho 30 sannadood dabadeed ummaddan halkay inay gaadhay rabtaa 40 sannadood dabadeed ummaddan halkay inay gaadhay rabtaa hogaamiyaha wanaagsan waa ka aragtida fog leh ee higsi sameeya maaha qofku inuu ku mashquulo haddaad aragto hogaamiye ama hoggaan ama dowladnimo ku mashquusha waxa maalin kasta taagan waxaa la idhaha fire fighting waa debdemis ee kolba cilada yaree soo baxday ku mashquula taasi hogaamin noqon mayso waa inaad maanta isweydiisaa dalka aad hogaaminaysaa 30 sannadood dabadeed halkuu joogaya halkuu qaaradda afrika kaga jiraya halkuu kaga jiraya dowladaha soo koraya halkuu kaga jiraya dowladaha muslimka ah waa hogaamiyaha wanaagsan waa ka aragtida dheer leh hogaamiyaha wanaagsan talabaad waxa weeyaan waa qofka dadka abaabuli kara
hogaamiyuhu waa inuu dadkan uu hogaaminayo abaabuli karaa. hadduu keligii uu kubadda la ordo, hadduu keligii uu noqdo qofka wax garanaya, hadduu keligii uu noqdo qofka doonayo waxaan u muuqdaan, aad bay u adkaanaysa. waxa weeyaan dadkaagu waa sidii gaadhi tareelaa oo aad jiidayso oo kale. hogaamiyuhuna waa madaxii hore wax jiidayay. haddii aanad dadkaaga abaabulin, haddii aanad dadkaaga tusin halka aad u wado, haddaanu dadku kula socon, dee khasaare badan baa kusoo gaadhaya. keligaa un baa ordayo, adoo keligaa ordaya ad arkaysa. marka waa qofka dadka abaabula. hogaamiyaha wanaagsani waa ka istiraatiijiyada sameeya. waa inuu hogaamiyaha wanaagsan istiraatiijiyad dhiga. waxaaba tidhi maalan waddankaygu waa inuu 10 sannadood gudaheed dhaqaalihiisu halkaa gaadhaa, oo maanta miisaaniyaddiisa ah 1 bilyan waa inay noqotaa 10 bilyan. afkaun haddaad ka tiraado 10 bilyan noqon mayso, ilan saxiroole ma tihide. hogaamiyaha wanaagsan waa qofka sameeya istiraatiijiyadii lagu keenaya. halkeed ka keenaysaa lacagta? halkeed dhaqaalahan ka keenaysa? waxaan la dhisaya halkeed ka keenaysa? yaad u adeegsanaysaa? sideed u keenaysaa? ma cashuurtaad kor u qaadaysaa? ma dadkaad odhanaysaa waxaad isticmaashaan yareeya? ma dhalinyaradaad ku dhisaysaa waddooyinka iyo jaamacadaha iyo iskuullada? yani sideed u samaysa? istiraatiijiyad waa inay muuqataa oo aan ahaynuun inaad laabta ka jecesha inaad wax samayso. hogaamiyaha wanaagsani marka intaa lasoo dhaafo ee qodobka afraad noqonaya, horta waa inuu shaqadan xiisa u hayaa. maaha un shaqadan un lagu yidhuun wallahi waad fiicantahay hadda hebelow ama heblaayo isu sharax, ama heblaayo hogaamiye noqo, ama heblow hogaamiye noqo. waa inaad waxaan xiisa u haysaa, oo aad wakti gelinaysaa, oo aad dhaqaale gelinaysaa, oo aad gelinaysaa caqligaaga iyo cilmigaaga iyo kartidaada. xiise haddaanad waxaan u hayn oo lagugu soo qasbayo ama lagu yidhin wallahi waad ku fiicantahay hadda gal, hogaamiye wanaagsan noqon mayso. qofku waa inuu hogaankan xiise u hayaa oo uu uga xiise badanya wax kastoo kale u qabanayo. hogaamiyaha wanaagsani waa qofka kalsoonida leh ee isku kalsoon waxa uu qabanaya iyo mowqifka uu taagan yahay ina uu yahay wixii wanaagsanaa ee ay ahayd inuu qabto. kalsoonidu hadday kaa maqan tahay, haddii kolba go-aankaad gaadhaysa iyo waxaad samaynaysaa uu si kuula muuqdo ood maanta oo dhan dadka u weydiiso, way fiicantay inaad dadka weydiisaa, laakiinse waa inaad kalsooni naftaada ku qabtaa in meeshan aad rabto inaad gaadho inaad gaadhayso oo aad awooddeedii caqligeedii leedahay. hogaamiyaha wanaagsani waa ka aan caatifadda badan ku shaqayn. markaad hogaamiye tahay ee aad ummad ama dal hogaaminayso, waxaa kaa hor imanaya wax badan oo caatifada oo u baahan inaad maalin kasta dhaafto. haddii aad mar kastaba la qiirooto caatifaddaa timaada, waxaa laga yaabaa inaad aragto waxyaalo badan oo kugu kalifi kara dalkaaga inaad dagaal geliso. laakiin hogaamiyaha wanaagsan dee dagaal uma galo, waxbaa layna yeelay, ama dagaal uma galo cid bay soo gardaraysatay. wax badan buu xisaabiyaa. caatifaddu waa halka kala saarta hogaamiyaha miyirka qaba ee aad wax ugu fiirsada iyo hogaamiyaha caatifaddu waddo kolba arrinkaa lasoo qaaday uun la qiirooda ee la kaca. hogaamiyaha wanaagsani waxa weeyaan waa qofka lala xisaabtami karo, isaguna dadka xisaabin kara. qofka haddaan lala xisaabtami karin oo aanu miiska soo fadhiisan karin oo mas-uuliyaddii loo dhiibay iyo hantidii loo dhiibay iyo wanaaggii loo dhiibay aanu xisaabin karin oonu odhan karin 1 2 3 4 dee hogaamiye noqon kari maa, kheyr mas-uul buu noqonaya. hogaamiyaha wanaagsan waa in lala xisaabtami karaa, isaguna waa inuu dadka shaqada u dirtay la xisaabtami karaa. yaad wax u dirato hogaamiye hadduu madaxweyne yahay, haddii uu goro baarlamaan yahay, haddii uu yahay barasaab yahay, waa inuu dadkan shaqada u dirtay la xisaabtami karaa oo odhan karaa 1 2 3 ayaan kuu dirtay, maxaad ka qabatay arrinkii, halkeed arrinkii marinaysaa, halkee maxaa dhammaaday, maxaa kaa hor yimid. waa intaa. hogaamiyaha wanaagsani waa inuu waktiga la socdaa. adduunyadu isbedbedelaysaa, weliba iminka xiliyadan dambe isbedel badan baa socda adduunyada. technology baa isbedelaya, dhaqaalihii baa isbedelaya, dadka muuqoodii baa isbedelaya, xaragadii baa isbedelaysa, warshadihii baa isbedelaya, wax soo saarkii baa isbedelaya. hogaamiyaha wanaagsan haddaanu isbedelka la socon oo weli ku qufulan yihiin 20 sannadood 30 sannadood horteed sidii wax loo qaban jiray, aad bay u adkaanaysaa. waxaa laga yaabaa 20 sannadood horteed qabiil iyo qabyaalad iyo wax la mida ayaa ummaduhu wax ku dooran jireen. waxaa laga yaabaa maanta isbedel baa dhacay, technology baa wax lagu dooranaya, shaqo abuurid baa wax lagu dooranaya, aragti iyo fikir baa wax lagu dooranaya. haddii tii 20 sannadood horteed ay hogaamiyaha weli maskaxdiisa ku jirto, aad bay u adkaanaysaa inuu dadka iyo ummadda halkaa ka saaro. laakiin mid baa imanaysa oo qodobka ugu muhiimsan ee ah inuu hogaamiyaha wanaagsan yeesho, waa go'aan qaadashada. hogaamiyaha wanaagsan haddaanu ahayn hogaamiye go'aan qaadan kara oo weliba go-aanka qof walbaaba u qaadan karaa marka uu jilicsan yahay,
iminka haddii lagu yidhahdo laba baabuur baa halkaa lasoo dhigay keebaad jeceshahay dee waad kala garan kartaa qof kasta uu garanaya wallahi kanaan jecele go-aanku kaa maaha go-aanku waxa weeye markuu xaalku adag yahay waa marka la rabo la odhanayo dhaqaalaha iyo wax soo saarkeena maynu badina haa mushaharka ummadda maynu u kordhina mise waynu ka dayna maynu u kordhin mayno laakiinse waa inuu dadku shaqeeyaa saacado siyaada ah waa hogaamiyaha dee wanaagsan baa go-aankaa qaadan kara go-aanka wanaagsani waa go-aanka baqashada leh laakiinse marka lagu leeyahy hogaamiyahaasi go-aan u qaadan karaa waa calool adeeg laakiinse calool adeegu cidlo kama yimaado taluu dadka weydiiyaa taladaa dadka weydiinaysa qofka waxaa kaaga aqoonta badan laad weydiinaysa ood leedahay sideen waxaa u galaa sidee waxaa loo sameeya laakiinse ugu dambaynta hogaamiyaha wanaagsani go-aankiisa dadka kalama tashado haddaad aragto hogaamiye go-aankiisa dadka kala tashada waa hogaamiye faashila talada horuu kala tashadaa oo waxbuu weydiiya laakiinse markuu go-aanka gaadhayo isaga oo shaksiya oo keligiya ayuu go-aanka gaadhaa waayo ugu dambayntana go-aankaa u gaadhay isagaa mas-uuliyaddiisa qaada ama iyada rag iyo dumarkuu doonaa noqdee mas-uuliyaddiisa qaada hadduu wanaag yahayna isagaa ammaanta ku leh haddii ay dhibaata ka soo baxdeen isagaa mas-uuliyaddiisa qaada go-aan qaadashadu waa mawduuca ugu adag ee ay tahay in qofka hogaamiyaha lagu doorto in yaroo tusaalaha ku siiyey si aad u ogaato nelson mandela waxau xidhnaa 7 sannadood waxa uu ku jira jeel silsiladda lugaha lagaga gooyey isaga iyo dadkii la midka ahaaba weliba kuwii kale la midkaa qaar badan waa la laayay isagaaba noolaaday laakiinse 7 sannadood ee cimrigiisa ugu wanaagsanaa waxa uu ku dhammaystay jeel maalintii la soo daayey yaana jeelka geliyay dadkii caddaa waa dad cad oo tiro yar oo malaayiin dad madoowa xukumaya oo qeyrkood ka reebay oo iyaga dilay oo dhibaato kasta ku sameeyey markii la soo daayey ee uu isagu madaxtinimadii qabsaday ee uu dalkii madax ka noqday waad garan kartaa ninka 100 sannadood isaga iyo ummaddiisiiba lasoo gumaysanayey ee 100 sannadood qeyrkii laga reebay maalintii uu noqday madaxweynaha waxa la filayey dee inuu hiiliyo dadkii dulmanaa dadka dulmani waa dadkii madoobaa inuu hiiliyaa la rabay inuu wax ka celiyaa la rabay wixii ay tabanayeen maalintii uu soo baxay nelson mandela waxa uu yidhi dadka madow laga qaadi maayo meelihii haysteen dadka cad laga qaadi maayo meelihii haysteen oo dhan warshadihii iyagaa weli xukumaya warshadihii hubka soo saaraya iyagaa haya dhaqaalihii dalka meelay ku jireen iyagaa haya nabad sugiddii iyo nabadgelyadii iyagaa haya bangiyada iyagaa xukumaya sharcigana iyagaa haynaya dadkii madoobaa waxa ay la yaabeen oo ay la wareereen oo ay fahmi waayeen ninkii mandela ee isaga iyo malaayiintii madoobeydba 100 sannadood la xanibay maalintay fursaddii heleen dadkii cadda ha sii hayeen xukunkii dadkii way fahmi kari waayeen waxay dhahan waa ninku mii waalan yahay xagguu ka dhacay ma fulaybaa maxaa ka siya nelson mandela wuxuu fahmay hadday u qiiroodo oo ay caatifaddu qaado caatifadda waa inaga xagga hore ku soo sheegnay oo ay caatifaddu qaado uu yidhaahdo wixii caddaay oo dhan badda ku dara dadkii madoobaa meesha ha qabsadeen inaanu meel la gaadhayn waayo dadka cadi waxay hayeen dhaqaalihii waxay hayeen warshadihii waxay hayeen cadaaladii waxay hayeen jaamacadihii waxay hayeen meel oo dhan wuxuu yidhi dadkii caddaa sidoodii ha inoogu soo jeedo waryaa waa ninka madoobow waxbaro horumar gaadh samee haddaad u fiirsatad nelson mandela dee dhakhtar muu hayn marka lagu leeyay dalkiisa horumar buu gaadhsiiyey military muu hayn xoog weyn oo dadka xoog ku qabsaday injineer muu hayn warshadaha ka shaqeeya iyo waddooyinka dhisa waxba muu hayn waxaan la sheego muu hayn looyarnimu bartay taasina markuu dhowr sannadoodba ka soo maqnaa iskuulka ayaa la xidhayba yacni wuxuu ahaa maa waxa keliya ee nelson mandela waa hogaamiyaha dunida ugu wanaagsan adduunka o dhan iska dhaadhiciyey waa go'aamadan yaruu gaadhay wax kale muu samayn isagu dalka hore muu marin laamiya hala dhisa muu odhan go'aano wanaagsan buu gaadhay robert mugabe oo zimbabwe xukumaa iyo nelson mandela isku mar bay jabhad ahaayeen robert mugabe markuu xilka qabsaday ninka caddaan eriyuu yidhi kan kale sameeyuu yidhi caadifadda wixii dadkiisu jeclaayeen oo dhan buu la qiirooday sidan hala yeelo maanta waa waddamada dee ugu liita dhaqaale ahaan dabcan siyaasado kalea jirooda lagu cadaadinayo waa dhaqaalaha ugu liita marka waxay kutusaysaa taasi go'aan qaadashadu in ay tahay mawduuca halka ugu wanaagsan ee qofka hogaamiyey maanta dalka iyo ummadda aynu la nool nahay waxyaalo badan baa go'aan u baahan uma baahnin yani dee hogaamiye injineera ama hogaamiye dhakhtara waynu u baahnaana hadduu yahay de way fiicantah laakiinse hogaamiye go'aano waxyaalo badan ka qaadan kara ayaynu u baahanna inaynu helo dhinac kale markaa qofka hogaamiye waa qofka nooceeya waa qofka maxay soo bartay khasab maaha inu qofka hogaamiye wax gaara soo bartay laakiinse waxa weeyaan inuu aragtina leeyahay go'aanna qaadan karo masalan waxaad ka soo qaaddaa dagaalkii dunida labaad
hogaamiyaashii dunidu ma jiirato ee aad u ma jiirato ee loo arkay inuu masalan waddanka ingiriiska oo kale ka saaray dhibaato badan waxaa la odhan jiray Winston Churchill dee generaal askariya xukuma mu ahayn haddana ingiriiska isagaa ka saaray dagaalkii oo dagaalkii dunida hogaamiyey mu ahayn dee generaal yani da askari uu soo ahaa mar laakiin generaal mu ahayn dee ciidamada imika hogaaminaya haddana waddankii isaga ayaa ka saaray xaalad dagaal qof shiciba ayaa ummad dhan oo reer yuruba oo hore u martay ka saaraya xaalad dagaal oo isagu hogaaminaya ummaddii waxaad ka soo qaataa faransiiska de Gaulle oo kale generaal buu ahaa ciidana haddana wuxuu hogaamiyey dimuqraadiyadihii ugu wanaagsanaa yurub oo faransiiska ayuu ahaa hogaamiyeyaashii ugu wanaagsanaa wax soo mara isaguna askari buu ahaa haddana wuxuu hogaamiyey dowlad shiciba waxaanu noqday hogaamiyaashii ugu wanaagsanaa ka horeen sheegayna Winston Churchill shicib buu ahaa waxaanu hogaamiyey dagaal waxaanu noqday hogaamiye wanaag marka horta khasab maaha qofku inuu askari ahaado inuu dhakhtar ahaado inuu lawyer ahaado inuu way fiicanta inuu qofku aqoon hore yeesho waxa weeyaan intooda badan waxa ay lahaayeen hogaamiyaasha aan sheegay ama ha noqdo mid shiciba ama ha noqdo mid askariya ama ha noqdo qof wadaada ciddu doona ha noqdo intooda badan waxay ahaayeen hogaamiyaal aragti fog leh iyo hogaamiyaal adag oo go'aan qaadan kara labadaasi markay isku raaceen ayay intooda badan noqdeen hogaamiyaal taariikhdu ay aad u xusto haddaan imika masalan dee dhinac inagoo kale aad ka soo qaato aragtida marka la leeyahay masalan qofka aragtida la leeyahay go'aanka iyadoo waynu ka hadalay laakiin marka aragtida fog laga hadlayo waxa weeye maanta ummad baynu ku noolnahay waxaa laga yaabaa inaynu ka fakirayno kamama fakirayno ay nagu qasab tahay inaynu leenahay 10 sannadood ee soo socda iyo 20 sannadood ee soo socda iyo 30 sannadood ee soo socda ummaddeena inaynu dhaqaalaha aynu kor u qaadno inay bulshadeenu hore u marto in aqoon marka su'aal baad weydiisay waxaad leedahay haddii aad maanta hogaamiye ummaddeena tahay oo aad doonaysa inaad waddankeena hore u mariso halkee baad hore uga marinaysa ma warshadahaynu xoogga saarnaa ma waxaynu saarnaa ganacsiga xoogga ma waxaynu saarnaa xoolaha ma waxaynu saarnaa beeraha keebaynu xoogga saaraynaa waxaan oo dhan si aynu aragno hogaamiye waynu aragtidaa leeyahay masalan haddaad maanta tidhaahdo xoolaheennu waa lafdhabartii waddanka oo dabcan waa lafdhabartii waddanka dee dad badan baa ku nool laakiin dee xoolo way sii baaba'ayaan haddana waynu ogni oo maanta way sii baaba'ayaan 5 sannadoodoo dambe xoolo badan oo waddankeenu yeelanaya marnaba ma jirto haddii aanay sida wax iska bedelin laakiin haddaad maanta oo dhan aynu idhaahno masalan waa lafdhabartii waddanka oo aynu isu sheegno ugu dambaynta laf la'aan baa kuu soo baxaysa marka waa inaad tidhahdaa lafdhabartii waddanka hadday yihiin sidee baynu u gallaa xoolihii maynu urir ilaan dhulkii waa la wada degeeyey reer miyii buu wada gaajooday uu ka wada yimid haddii kaloo tidhahdo masalan horumar baynu gaadhaynaa abaartu sanad kasta way ibanaysaa sidee baynu uga baxayna ilaan sanad kasta qaadhaan ururin mayna hogaamiyaha wanaagsan waxaasoo dhan buu sii arkaa uu sii maleeyaa sidii looga bixi lahaana u keena go'aamadiina u qaata innaga haddaad eegto nolosha ummadeenna haddaad eegto waxay ina dishay go'aan qaadasho la'aan baa waxyaalo badan halkaa ina dhigtay masalan maxaan ka soo qaadaa dee saacado yar baynu shaqaynaa 3 saacadood baynu shaqaynaa oo 2 saacadood ama 4 saacadood 3 saacadoodna intooda badan 2 saacadood waan hadlaawun dee anigu shaqadayda saacadun baa dalaga yaaba inta kale waa la hadlaawun ummadaha kale oo dhan ee horumarka doonaya inay sameeyaan waxay shaqeeyaan 10 saacadood waddan aan 10 saacadood iyo 12 saacadood soo shaqayn weligii horumar muu gaadhin adduunyada taariikhiyanba waddan aan ummadiisu 12 saacadood shaqayn maalintii qaarkoodna way ka badiyaan dee waddan 2 saacadood shaqeeyo ummadii weligii haddaynu quraan towraad iyo injiil akhrino horumar gaadhi mayno laakiin dee hogaamiye u baahan tahay yidhaahda mushaharkaagana waad qaadanaysaa 12 saacadoodna waad shaqaynaysaa eegata hogaamiyuhu hadduu had iyo goor isku dayo inuu dadka ka farxiyo inuu dadku waxay jecel yihiin sheego inuu sida dadka imika anigu haddaan rabo in layga farxiyana waan garanaya waxaan rabaa inaanan shaqayna iska fadhiyo oo iska faraxsanaado guri wanaagsan dhisto gaari wanaagsan wato carruurtaydu iskuul wanaagsan tagto dee laisku heli maayo horaa looga maamaayo layidhi fadhiyo fuucdii cibeed laisku waa waxaasoo dhan heli maysid waxaasoo dhan waxaad ku helaysaa haddaad maxamed cali bilo tahay inaad 18 saacadood shaqayso maalintii oo dhiidku kaa dhammaado ood aroor kasta ka laahdo ood si fiican u shaqayso ood wax qabato markaasunbuu imanayaa waxa aad doonaysa marka go'aamada noocaasa ayaanu ka wada markaan idhaahdo had iyo goor hogaamiye go'aan wanaagsan qaadan karaa ayaynu u baahanay waa ka dabcan waynu soo lahayn hogaamiye wanaagsan oo badan laakiin mid walba xoogga waxbuu saaray haddaad taariikhdeena dib u raacdo mid wuxuu saaray waddankii dee in laysu yimaado oo wanaag lagu wada dhaqmo oo dee cabdiraxmaan axmed cali marka ka soo bilowdo in la wada noolaado dee keeni iyagoo dadku wada hubaysa
الله ونحرسه محمد إبراهيم عقالة تدرك إن دولة نما لا دستو أيو كان ودولة نما هيك لا دستو هذا ضاير ريال دبر رعده ديمقراطية دين لا سميه دور شوين يلا قلا هذا أحمد محمود سيران دولة دي سأكت وحاو كان إن إمكانيات كي دولة لا دستو الله بلاريو لكن يمكن حاول بعنتي عيارته هل كان ميل أدق بيجلس أيمك ميل أفرتها هربا كسي أدق بيجلس صدق هذا هربا وتيرر لسان لكن ميل كسي أدق أفرتها هربا وتيرر لسان لكن ميل كسي أدق بيجلس وهو محي سيدنا عالم كحولة قبسن كرنا اللي نجو شمال لأنه وحسي شيء جميني سيدنا عالم هجامي ونكسنا عرقت دير وقوان ونكسنا قاعدن كرا وأنا هاي نوقف تدك كفر حياة ونكسنا تدك الحجوج هذا دركته هجاميون تدك كودا فرح سي هاي وحيس wanaagsanoo dadka iska dhex socdo oo kalgacal badan oo caynkaasoo jar baa la iskala dhacaa kaa hogaamiye wanaagsan oo ka ku dhawaad qaldantahay halkaad ku socotaa sax maaha inaga leex